san lee dabku ka bakhtiya hal loo shida dabka ka albaabka soo ootay albaabkiisa hal la garaaco dad baa jira laga yaabo iyagoo dhulka u dhacay waxna inaanay ku weydiisanay sadaqadu waa cajiib sir badan baa ku jirta caafimaad haddaad doonayso waxyaabaha lagu helo sadaqa ugu horeysa muraad kale haddaad leedahay waxyaabaha lagu helo sadaqa ugu horeysa cabsida maanta adduunka caam yeeshay waxyaabaha lagaga badbaaday ugu badan sadaqa kowka ah nabigu waxa uu sallallahu alayhi wa sallam inna sadaqata sirri tudfi'u ghadaba ar-rabb tabaaraka wa ta'ala sadaqada hoos wax loo bixiyo iyadoo adoonkiyo ilaahay mooyee cid kale aanay ogeyn sadaqada hoos wax loo bixinayo cadhada ilaahay ayay bakhtiisaa oo ay damisaa cudurrada iyo cabsidu cadho ilaahay bay ka dhalataa wax lagu bakhtiyana waxa ugu mudan in waxa weeyaan beerka gaajoonaya ee bani aadamka ee karaamada leh inaad waxa weeyaan qoyso oo calooshaas maran aad buuxiso waa waxa ugu weyn naxariis ku soo degto ilaahay hadduu ugu naxariistay aadamihiisii ay loo naxariistay ay oo gabadhii zaaniyada ahayd ee ayga waraabisay ilaahay ugu dambi dhaafay maxaad u malaynaysaa mu'min karaamaysan qofka calooshiisa buuxiye ee ka farxiyana maxaad u malaynaysaa ajar intee leeg buu ka heli karayaa ay baa lagu helay ajar iyo naxariis haddii lagu naar galay bisad qaraabkeediina laga xidhay waxna aan la siin sida xadiidka nabiga ku ansaxday qof bani aadam oo karaamo leh haddaad dhibtana cadaab intee leeg baa ka dhalanaysa axaadiidta nabiga waxaa ku sugan mayeedhaankii iyo bahaa'imtii la xidhay ee la ciqaabayna waa lagu naar mutay xayawaanaadkii loo naxariistayna jannaa lagu galay aadamaha ilaahay karaameeyeyna haddii loo naxariisto darajo weyn iyo janno ayaa lagu helayaa ifkana ilaahay kurbada iyo dhibaatooyinku ku faydayaa waxaan si gaara u xusayaa waxa weeyaan madaarista iyo goobaha waxbarashada ee la fasaxay waalidku macallinkii ilmihiisa wuxuu dhigaya waa inaanu ilaabin hadduu ilmihiisa iyo ooridiisa iyo ubadkiisa u warwarayo kii quraanka ilmihiisa u dhigayana waa inaanu iloobin macallimiintii wax dhigaysay ama ha dhigaan maadiga iyo duruusaha waxa weeyaan adduunyada ama ha dhigaan diinta iyo quraanka maanta markii fasax uu yimid ee bilina ay dhamaatay bil kalena lagu daray dhexdeena inay ku daranyoodaan ma fiicna oo waa arrin aad iyo aad u naxdin badan inay ku gaajoodaanna waa ayaan daro cuquuba ay ka dhalan karto waa in waalidku isxilqaamo oo